السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامنتين walaalahena ku xiran kanaalka dhiirigeliye tani waa xubinteeni tala wadaag anna waxaan ahay Yaasir Mukhtaar hadaba ku soo dhawaada waxay ahayd waqti ku haboon waxayna ahayd xilli aan ku howlanaa diyaarinta barnaamijka tala wadaag waxay la soo xiriirtay gabar ku nool wadamada qurbaha salaan kadib waxay iga sheekaysay inay muruga ay la nooshahay waxaan ahay qof habeenii maalinba ilin maciin bida waxaan ahay qof ka quusan nolosha hadaanan ahaan lahayn qof muslim ah nafta ayaan isdhaafin lahaa waxayna ii sheegtay inay murugada ka haysato dhanka familigeeda ayna tala iga rabto kadibna wixii karaankayga ahaa oo Allah subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay ayaan ku waaniyay alxamdulillah wayna ku qanacday sida aan markaasi dareemayay markaasi kadib waxaan is weydiiyay maxaynu u dareennaa mararka qaar murugo maxay dadka qaar nolosha ugu quusaan farxadeena ma waxa ina siin kara dadka naga maqan farxadda ma waxa naga qaadi kara dadka oo ina siin kara xilligii ay doonaan sababtoo ah dadka qaar markay ina xumeeyaan waynu murugoonaa oo waynu walbahaarnaa sidii in la yiri waxaad ku dhacdeen imtixaankii aakhiro subhanallah farxadeena ma waxay ku xiran tahay meel aan tagno yaani inaan ka tagno halka aan ku noolnahay oo aan u taaribno wadamo kale xageesa farxadda laga helaa ma waxa farxadda laga helaa inaan tagno wadamada shisheeye mise farxadeena dadka ayaan ka sugaynaa oo hadii ayna sharfaan waa inaynu faraxsanaanaa hadii ayna yasaana waa inaynu murugoonaa mise farxadda dhabta ah waxay ku jirtaa inaan qaadano amarka Allah subhanahu wa ta'ala walaal hadii qof qoys iyo qalqiga intaba ay ku wada kulmaan inay farxad ku galiyaan macquul ma noqon karto kumana siin karaan farxad muhiimadu waa inaynu qalbiyadeena ku xirnaa qaaliqa qaniga ah qaaliqa quuritaanka badan qaboojiyaha qalbiyada murugaysan kaafiyaha kurbada fayda ugu walaal waxa jira qof hanti lagu manaysay haddana aanan haysan farxad qof waxa jira waalid iyo walaal ay hareerihiisa taagan yihiin kana helaya hiil iyo hoo haddana aanan haysan farxad qof waxa jira aqoonyahan ah oo laga yaabo inuu haysto darajaad u sareysa kana gaaro guulo la taaban karo balse wax farxad aanan ku haysan waxa kale oo yana meesha ka marnayn inuu yahay qof ku nool qasri aad u qurux badan oo ku yaala qaarad kamid ah qaaradaha dunida kuwooda lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu horumarsan isla markaasna dadka ay ku tiriyaan ama ay ugu yeeraan waxa loo yaqaan dunida koobaad iyo dunida labaad dhalanteedka iyo dhaldhalaalka dunida ma ahan farxad lacagtu ma ahan farxad farxaduna ma ahan lacag ugu walaal farxadda meel kale ka raadin farxadda hareerahaaga ayay taalaa farxaduna ma ahan mid safar dheer u galayso farxaddu ma ahan mid aad malaayiin dollar ku qarash gareynayso farxaddu ma ahan mid kaaga lumaysa boqolaal sano raadinteeda farxaddu uma baahna inaad tagto dhakhtar kadibna bac buuxdo oo kaniinayaal farxad siyaadiyeyaal ah uu kugu soo amro waqti hebel inaad cunto haddaba walaal sirta farxaddu waa akhrinta quraanka kariimka meel kale ka raadin kitaabka waa kaabaha nolosha waayo waa kaamil oo malahan wax nusqaan ah waa kurba fayde oo wuxuu biyaa kurbada walaal waxaad uga maarmaysaa aadanaha waxaadna ku helaysaa xasilooni waxaadna gaaraysaa guul wax ku ool ah sirta farxaddu waa akhrinta quraanka kariimka kuma oranaya kitaabka hal maalin wada akhri gabi ahaantii balse waxaad u baahan tahay maalin kasta inaad akhriso xisib oo ka kooban 10 beej ama juz oo ka kooban 20 beej intaas waxa dheer inaysan kugu qaadanaynin waqti badan aad ku bixiso kaliya waxa uu u baahan yahay wax ka yar hal saac ugu yaraan 15 daqiiqo ama 30 daqiiqo oo kaliya haddaba walaal ha ka raadin farxadda meel aysan jirin farxaddu waa agtaada ha ku marmarsoonin kitaab ma qaadi karo ama iima yaalo taasi waxa beeninaya mobilkaaga oo dunidu waxay hadda maraysaa tiknoolajiyad casri ah ha noqon doqon waayo doqonku waxa wax ka raadiyaa meel aysan wax ka jirin isaga oo xaqiiqda hel farxadaada oo ku hel wax ka yar hal saac ama nus saac intaas waxaan ku raacinayaa saddexdan qodob iyaguna muhiimka ah kow salaadu waa shay qaali ah waxaana cadeynaya inay qaali tahay waxa laga soo waajibiyay 7 samaawaad korkooda ahmiyada iyo wanaagga ay leedahay ma ahan mid aan koobi karno salaadu waa mid ka dhaxaysa adoonka iyo rabbigiisa farxad ka weyn miyaa jirta waayo salaada dambiga ayaa lagu dhaafaa farxad ka weyn miyaa jirta waayo salaadu waxay ku diidaa xumaanta waxayna ku fartaa wax walba wanaagsan salaadu waana waajib waxayna waajib ku tahay qof walba muslim ah oo qaangaar ah aqlina leh salaada in farxad laga helayo waxa cadeyn u ah salafus saalix mid kamid ah salafus saalix ayaa yiri aniga dusheeda waxa ah inaan caabudo yaani aan u tukado sidoo uu faray dushiisana waxa ah inuu yarzuqo sidoo igu yaboohay meesha waxaan ka fahmaynaa walaalayaal qofka salaada daa'imaya ee waqtiyadeeda ku tukanaya in Allah subhanahu wa ta'ala arsaaqada u barakeynayo salaada waa shayga ugu horeeya ee maalinta aakhir lagu weydiin doono haday wanaagsanaato amaladaada oo dhan way wanaagsanaan doonaan salaada haday xumaatana amaladaada kale oo idil way xumaanayaan
salaada in farxad laga helayo waxaa caddayn u ah nebigeena Muxamed sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa heer waxay gaareen xitaa haddii ay u baahdaan cusbo ama shay la mid ah marka hore salaad bay ka bilaabi jireen oo 2 rakac ay tukan jireen waxayna dhihi jireen allahayow waxaas ayaan addoonkaaga uga baahanahay adigaana siiyey adigaana iga sahli kara ee ilaahayow iga sahal waxaa kaloo farxad laga helaa mu'adinka markuu salaadeena ugu yeerayo wax walba uu ku dhawaaqay inaan anagana ka daba dhahno maxaa yeelay wuxuu ina leeyahay marka uu leeyahay Allahu akbar wuxuuna xasuusinayaa ilaahay keligiisa inuu weyn yahay qeyrkiisana uu yar yahay marka uu leeyahay mu'adinka ashhadu an laa ilaaha illa allah wuxuuna xasuusinayaa allah ma ahan ilaah kale oo xaq lagu caabudo inuusan jirin mu'adinka marka uu leeyahay ashhadu anna muhammadar rasuulullah wuxuuna xasuusinayaa nabigeena suubanaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu'adinka markuu leeyahay hayya cala as-salaah wuxuuna xasuusinayaa salaadeena ugu waajibka mu'adinka marka uu leeyahay hayya cala al-falaax wuxuuna leeyahay u kaalaya liibaanta adduunyo iyo liibaanta aakhiro mu'adinka marka uu leeyahay Allahu akbar mar labaad ayuu ina xasuusinayaa in Allah uu weyn yahay khayrkiisana uu yar yahay mu'adinka marka uu leeyahay laa ilaaha illa allah wuxuu ina xasuusinayaa kelimada tawxiidka walaalayaal waxaad ogaatiin aadaanka inuu yahay dacwo dhammaystiran waxaana laga rabaa walaalayaal mu'adinkaas aan hadda soo tilmaannay oo inoogu wacay liibaanteena adduunyo mideena aakhiro oo inoogu wacay wanaageena iyo farxadeena inaan ajiibno walaalkayga muslimka ah waxaad ogaataa camal walba aad qabato waxa ugu khayrka badan waa salaada sida nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofkii salaada ka tagana heli maayo farxad weligiisa inta uu nool yahay farxadana ma ahan qosolka ee waa tan qalbiga ah ilaahay hanaga dhiga kuwa salaada xafido oo ku dadaala labo ducadu waxaa laga helaa farxad sida uu inoo sheegay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam isagana uu sameyn jiray maxaa yeelay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu aqrin jiray mar walba uu dareemo murugo haba yaraatee duco waxaana ka mid ah ducooyinku ku duceysan jiray kuwan اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله ربي لا أشرك به شيئا qofkii aqriya ducooyinkaasi wuxuu helayaa farxad waliba qalbiga ah haddaba walaalayaal aynu aqrisana ducooyinkaasi haddaynu doonayna farxad waarta saddex qanacsanaantu waa shay Allah subxaanahu wa ta'aala uu bixiyo adoomadiisa cidii uu doono ayuuna siiyaa qanacsanaantuna waa inaad ku qanacdo wixii uu Allah subxaanahu wa ta'aala uu ku siiyey ha yaraadeen ama ha badnaadeene
haddaba waxaad ogaatiin qanacsanaantu inaysan ahayn mid dheeldheel lagu helo ama la iska dhigdhiga qof qanacsan ee waa wax Allah subxaanahu wa tacaala uu bixiyo haddaynu doonayna inaan qanacsanaanno waa inaynu Allah subxaanahu wa tacaala uga mahdinaa in badan wixii uu ina siiyey qanacsanaanta furaheedana waa inaad in badan ku mahdisa Allah subxaanahu wa tacaala waadna heli doontaa inshaa Allah waxaan idinla wadaagayaa qiso caddaynaysa in qanacsanaanta laga helo farxad oo haddii aad ku qanacsan tahay waxa aad haysata aad tahay qof faraxsan qisadani waxaan la kulmay maalin aan u socday jaamacadda bal haddaba ila eg qisadan cajiibka ah waa maalin khamiis ah abbaara 8 subaxnimo aniga waxaan u socdaa jaamacadda waddada tagta jaamacadda ayaan hadda marayaa bal joog wax cajiib ah ayay hadda indhahaygu arkayaan waa ciyaal waa ciyaal weliba aad ayay u qaylinayaan waddada dhexdeeda ayayna ku ciyaarayaan kubad weliba iyadoo ay waddada tahay mid aad u ciriiri ah gawaari fara badanna ay marayaan taas waxaaba u dheer inay wataan dhar aad u wasaqaysan kuwa qaarna wasaqda waxaa u dheer arad oo maryahoodu way jeexjeexan yihiin waxaasoo idilka soo gudub intan oo xaaladda ah aniga imay cajabin balse arrinka aadka ii cajabiyey wuxuu ahaa sida ay u faraxsan yihiin iyo qaabka cajiibka ah ee ay wejiyadooda uga muuqatay farxad iyaga oo kolba dhan u weriyanaya kubad waan istaagay waxaana bilaabay inaan isweydiiyo sababta ay carruurtan yar sidaasoo dhan ay ugu faraxsan yihiin kubaddayayna ku faraxsan yihiin kubaddayayna ku faraxsan yihiin weliba ay ku ciyaarayeen meel aanan munaasib ku ahayn way faraxsan yihiin iyagoo wata dhar wasaqaysan way faraxsan yihiin iyagoo laga yaabay inay haysato duruufo u gaara sidaasi oo ay tahay haddana way faraxsan yihiin bal aan ku su'aalay maxaa dadka qaar u diiday farxadda iyagoo taajiriin ah haddiiba lacagta ay keenta farxad maxay tahay sababta ay dadka qaar u farxi la'yihiin iyagoo jooga kuna nool waddamo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu horumarsan adduunyada oo ay dhinac welibana ka hormareen haddiiba farxadda laga helo waddamadaas maya hadda kadib looma baahna inaynu sidaas u fikirno waddo qaldan ayaynu ka raadinaa farxadda waddo qaldan ayaynu ka eegnaa nolosha iyo mustaqbalka balse taa beddelkeedu waxaynu ka helnaa khasaare iyo geeri geeri ayaynu ka helnaa oo sannad weliba boqolaal dhallinyarteennaha ayaa ku dhimata waddadaas qaldan haddaba farxaddeenna anagaa samaysan karnaa ee aynu u dagaalanna farxaddeenna waxaa laga yaabaa inaanan ahayn hantiilayaal waxaa laga yaabaa inaanan ahayn haliyeeye caanka ah gobollada iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin waxaa laga yaabaa inaanan lahayn sare dhaadheer waxaa laga yaabaa inaanan ahayn ganacsadayaal waaweyn cayaaryahano caga fudud iyo siyaasiyiin saamayn badan waxaa laga yaabaa inaanan qurxoonayn waxaa kaloo laga yaabaa inayna haystaan dhibaatooyin badan waxaa hubaala inaan faraxsanaan karna anagoonan intaaba ahayn ama aanan haysan waxaan heli karnaa deganaan maskaxeed iyo qanacsanaan nolosheenna waxaan ka dhigi karnaa mid aad u qurxoon sababtoo ah farxadda deganaanta maskaxeed iyo qanacsanaanta kuma xirna waxa aan haysanna iyo meesha aan joogno iyo ciddaan nahayba ee waxay ku xidhan tahay sidaan u fikirno haddaba aynu u dagaalanno farxaddeenna anagoo raacayna qorshe maalmeedkan ku saabsan farxad iyo fikrado wax dhisa aniga iyo adiga haddaan raacno qodobadan waxaan iska saari doonnaa inta badan murugada waxaana kordhisan doonnaa farxadda nolosheenna ah aan akhrinna qorshe maalmeedkan aanna ku dhaqanno waa qodobo muhiim ah oona loo baahan yahay inaad naftaada u sheegto subax walba waxaana ku siinayaa hub aanan lagugu qabsanaynin hub aanan kaaga baahnayn inaad xambaarto oo aad ku gaari karta himiladaada ugana hortegi karta wax kastoo hididiiladaada hoos u dhigaya wax kastoo horumarkaaga hakinaya waa kuwan ay horay u sii qaado naftaada ku dheh oo u sheeg kelmadahan soo socda maanta waan faraxsanaan doonaa sababtoo ah farxadda waxay ka imaataa gudaha ee maahan wax ka yimaada dibadda maanta waxaan isku dayi doonaa inaan nafteeda ku xakameeyo sida ay tahay iskuma dayi doono inaan xakameeyo wax weliba si aan u helo waxa aan doonayo waxaan ku raalli ahaanayaa qoyskayga iyo ganacsigayga oo ku qanacsanaanayaa sida ay yihiin maanta waxaan ilaalin doonaa jirkayga oo waxaan siin doonaa jimicsi waana ka taxadari doonaa waana nafaqayn doonaa oo kuma tacadin doono mana dayici doono waxayna middaasi ii noqon doontaa mid horumaraysa noloshayda maanta waxaan ku dadaalayaa inaan adkeeyo maskaxdayda waxaan baran doonaa waxyaabo cusub oo i anfaca waxaan akhrin doonaa waxyaabo u baahan dadaal dheeri ah fikrad iyo isku tacallujin badan maanta waxaan ahaan doonaa qof ay isfahmaan bulshada ku xeeran waxaan u ekaan doonaa sida ugu fiican ee aan awoodo
una labisan doonaa si qurux badan una hadli doonaa si tartiib ah una dhaqmi doonaa si ay ku dheehan tahay qanaaco aanana dhaleecayn doonin cidna ma raadin doono oo ma baarbaari doono ceebaha dadka kale maanta waxaan isku dayi doonaa inaan maalinteeda ugu noolaado sida ugu quruxda badan anigoonan xasuusan doonin maalmahaygii hore ee murugada lahaa maanta waxaan yeelan doonaa qorshe waxaana qori doonaa waxa aan rabo inaan qabto saacadiiba waxaana laga yaabaa inaanan u raacin sidaan ugu talagalay laakiin waan samayn doonaa middaasi waxay ka saari doontaa laba dhibaato oo kale ah degdega iyo go'aan la'aanta maanta waxaan nafteeda siinayaa waqti ay ku tagto meel jawi degan si ay uga fikirto awoodda alle subxaanahu wa tacaala waayo taasi nafteeda waxay ku abuuraysaa deganaan maanta waxaan ahaan doonaa midaan cabsan qaas ahaan ma ka cabsan doono farxaddayda iyo wax walboo ii horseedaya farxaddayda si aan ugu raaxaysto waxa qurxoon jeclaadana oona aamina in kuwa aan jeclahay iyagana ay jecel yihiin intaasi markaad dhahdi raacsii kelimadda muhiimka ah oo ah inshaa allah samayna oo ka dhabay intaas kadib qalbiga ku hay oo xasuusnow inaad tahay addoon oo uu allah subxaanahu wa tacaala kuu abuuray inaad caabudid naftaadana si qaasa ugu dheh waxaad tahay addoon waa inaad fulisaa 100% amarka allah wixii uu kaa reebayna si dhan aad uga tagtaa qodobadaasi waa kuwa lagaa doonaya inaad naftaada ka dhaadhiciso aad barto ugu dambayn walaalkaanka sare lahow u hiili naftaada u howlgal hankaaga gara addoonnimadaada una sheeg naftaada inaad tahay addoon rabbi ee aadan ahayn mid aadane ku bogaadi naftaada inaad tahay mid ku xaqle inay noqoto mid sharfan mid ay u hagaagto tan maanta iyo tan beri yacni adduun iyo aakhiro mar walbana filo mala wanaagsan waayo addoonku wuxuu rabbigiisa ka maleeyay ayuu ahaan ahaw mala fiicne una ahaw rabbigaaga waxaan kuu rajaynayaa horumar iyo farxad wabillaahi tawfiiq